wafdi uu hogaaminaya madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan oo habeenadii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Caabudwaaq ayaa gaaray magaalada Dalsan ee gobolka Galgaduud waxaana socdaalkiisa ku wehelinaya wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug State mas'uuliyiinta maamulka degmada Dalsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdigan uu horkacayay madaxa xukuumadda Galmudug waan beeri doonaa geedka nabadda waa la guddoon doonaa waxa mudankeeda geedkaas waxa uu noqon doonaa geedka hadda mustaqbalka hadii alla gacan harsan doono hadii alla ogow hadda mid ka fiican baa la hogaaminta dalkana waa la hayn jirnaa ogaada taas waxa farxad noo maanta Dalsan inaanu si dhammaan ah gobolka waqooyiga Galgaduud dadweynaheedii iyo degmooyinkeedii dhammaan halkaan inay ku kulmeen farxad weyn bay noo tahay iyadoo nabad ah dib u heshiisiintaas naxawdii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta waa maalin weyn waa maalin ciida waa maalin nabadeed aad baqirdaydu u kacsan tahay maxaan ku dhahay tamaanta iyadoo ay marka koobaad ay nabadda Caawudwaaq daafurkeedii tahay oo xafladan ay ahayd xafladii daafurka nabadda ee Dalsan aan ku qabanay oo beesha Dalsan ay mugtagelisay xafladii daafurka nabadda degmada Caawudwaaq ay mugtagelisay gudoomiyaha degmada Caabudwaaq Mahad Omar Cilmi wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Maxamed Xayir iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan ayaa uga mahad ceshay bulshada magaalada Dalsan sida ay u soo dhaweeyeen ciidameystireed oo shaqo ayaa laga qabtay oo ay ka qabteen guddiga xasilinta iyo gurihii guurtiga iyo maamulka iskaashanaya halkan hadda dhabad iyo jihadan ayaa waxa ka jira problem ka miisaan culus runtii kii anaga dhexdeennada ka jiray oo khatartiisa iyo culayskiisa leh waxaan codsanayaa guddiga xasilinta madaxa xukuumadda golaha guurtiga dhammaanteen inaan arrintaa ka qayb qaadanno oo iyadana aan xasilooni waddada ku soo dabaalno maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo weyn ugu fadhiya waa maalin muwaafaqo iyo midnimo ay dhacday waa maalin aan ku faraxsannahay haddii aan nahay maamulkii Galmudug madaxdii iga sarreysay iyo kuwa iga hooseeya dhammaanteen aan ku faraxsannahay maanta nabadgelyada dhacday maamuuska dhacay martigelinta dhacday si la yaab leh oo cadowguna uu ka naxayo inay isqabsato halkaan iyo ilaa cadaada iyo dhulka oo laamiga la soo marsiyaa rajaynayna haddii alla waxaana ku tallaabnay geedkii nabadda insha Allahu karim waxaana rajaynaynaa Soomaaliya oo dhan inuu kala gaaro waxa waaye maalin aad u weyn waaye marka maalinta sharafta leh iyo khayraadka sharafta leh maamulka sharafta leh dhammaantood waxaan leenahay maanta hawsha aad gudateen waa hawl weyn baana mahadsantihiin ayala Cabdullaahi Jaamac Home Cable TV Muqdisho.